garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa gelinkii hore ee maanta noqday meel mashquula kadib markii ay ka soo degeen siyaasiyiin iyo dad caan ah oo doonaya inay ka qayb galaan aaska qaran ee muqdisho loogu sameyn doono allaha u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdirasaaq Xaaji Xuseen Cabdiweli Maxamed Cali Gaas madaxweynaha maamulka Puntland oo hogaaminayay wafdi isugu jiray wasiiro xildhibaano isimada maamulkaasi iyo xubno kale ayaa soo gaaray magaalada muqdisho boqolaal ka mid ah dadweynaha magaalada muqdisho oo ay weheliyaan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya oo ka mid yahay ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed ayaa qaatay doorkooda soo dhaweynta ah waxaana la dareemayay buuq iyo sawaxan ballaaran oo ka jira gudaha garoonka markii ay soo caga dhigatay diyaaradii uu la socday madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi iyo madaxweynihii hore ee maamulka Puntland General Cadde Muuse Xirsi ayaa sidoo kale ka mid ahaa xubnaha muqdisho u yimid aaska qaran ee biri dhici doona Ridwaan Xaaji Cabdiweli afayeenka xukuumadda Soomaaliya ayaa u sheegay warbaahinta in wafdiga madaxweyne Cabdiweli Gaas uu ka mid yahay wufuud fara badan oo soo gaari doonta magaalada muqdisho kuwaasi oo ka qayb galaya aaska ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya maanta waxaa magaalada muqdisho soo gaaray madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Gaas iyo wafdi uu hogaaminayo oo salaadiinta Puntland ay ka mid yihiin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kala duwan oo xubnaha golaha wasiirada ah iyo gobolka Banaadir ayaa intuba soo dhaweeyay waxaana dhammaantoodba dabcan ay muujinayaan tacsida qaran ee Soomaaliya oo maalmihii la soo dhaafay sida la socotaan badalku waxa uu ku jiray tacsi qaran haddii ay bahawada lahaydmo barita ayaa la keeni doonaa marxuum Cabdirasaaq Xaaji Xuseen ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya oo dhammaan dadka Soomaalidu ay aad iyo aad u garan karaan taariikhdiisa iyo halyeynimadiisa dhinaca wadaniyadda waxaan rajaynaynaa in aaskaasi sidii loogu talagalay uu u dhaco hogaamiyayaasha iyo madaxda Soomaaliyeed oo dhan ay ka soo qayb gali doonaan marxuumkana Ilaahay waxaan uga baryaynaa in jannadii firdawsa